maalintii shalay dabley hubaysan ayaa jidgooyo u galay badhasaabka gobolka Togdheera Xamse Maxamed Cabdi oo wehelinayo taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheera Cali Gaadayare waxaanay dableydaasi rasaas u yeen wafdida uu hogaaminayay badhasaabka gobolka Togdheera weerarkan lagu qaaday mas'uuliyiinta gobolka Togdheera ayaa ka dambeeyay dhul deegaanaysi cusub oo laga bilaabay duleedka deegaanka Cali Saahid oo hoostaga gobolkan Togdheera haddaba badhasaab ku-xigeenka gobolka Togdheera Maxamed Cabdilaahi Nafaqo ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi isagoona tibaaxay inaanay jirin wax khasaare nafeed ah balse ay jiraan waxyeello xooggan oo la soo gaarsiiyay gaadiidka ay wateen badhasaabka iyo taliyaha ciidanka booliska Cali Gaadayare waana kan badhasaabka oo ka hadlay arrintaasi in yaroon oo shalay dhacdadii yarayd oo runtii aad loo bumbuuniyay iyadana iminka hawshaasi way dhamaatay maamulkii gobolka iyo taliyada qaybta iyo maxay hayteenay odayaashii deegaanka intuba arrinkii si fiican ay u socotaa afkaradna insha Allah taala waa laga gaari doonaa saacadaha soo socda way jirtaa rasaas maxay hayteenay niman dhalinyaro ah oo wax magarata ah ay maxay hayteenay ay ku rideen gudoomiyaha iyo taliyaha qaybta iyadana wax weyn runtii oo iminka la sheegi kara ma gaarin marka iyadana intaasaan insha Allah taala aan la wadaagaysa haddaba maxaa xukuumadda Soomaaliland uga meel yaala khilaafaadka ka dhashay deegaamaysiga cusub kaas oo beriyihii u dambeeyay ku soo badanayay gobolka Togdheera su'aashaasi waxa ka jawaabaya badhasaab ku-xigeenka gobolka Togdheera waxa u dhimaysa dawladnimada ee sharciga dawladda ayaa wax kasta ka sareeya cid walba burcabadeed oo meel gasha ama maxay tahay burcaduleed ha ahaato ama diciis abaabushay wax magarataha noqotay deegaan buuxda ayaa wax laga qabanaya biyadin lahayd Cabdiraxmaan Trike telefishinka Horyaale magaalada Burco